iyadoo weli aanan la gudagalin doorashada Soomaaliya welina uu jiro muran la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku eedeysay dowlad goboleedyada qaar inay u keeneen dib u dhac doorashada Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Dube ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay weli ka la'dahay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada inay soo dhameystiraan xubnaha guddiga doorashooyinka qaran. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Dube oo ka qaybgalaya barnaamij dood wadaag ah oo ka baxay TV-ga caalamiga ah Universal ayaa waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in gaabis kasta uu ku yimaado doorashada Soomaaliya aysan mas'uul ka ahayn dowladda federaalka Soomaaliya. hadalkan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Cismaan Dube ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo weli muran ka taagan yahay guddiga doorasho isla markaana ay tahay in doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hooseba ay dhacdo bisha December oo maalmo qura ay naga harsan yihiin. dowladda Soomaaliya iyo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaa maalmihii ugu dambeeyay hawada hanjabaad isu marinayay, waxaana qaar ka mid ah bulshada ku nool Soomaaliya ay walaac ka muujisay arrintaasi. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo dhowaan ka hadlayay xaflad ka dhaceysay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in la beegsan karo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya isla markaana u soo qaatay ayada ka mid ah ayadaha Quraanka Kariimka, waxaana sidoo kale uu sheegay in la beegsan doono ama la dili doono. sidoo kale Cumar Finish ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in beenta ay wadaan uun soo dhaafi karin oo kaliya afkooda, hadday soo dhaaftana maxaa dhacaya, hadday soo dhaaftana waxay u carari doonaan goobihii ay ka yimaadeen, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho. hadalkan kadib ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu hadlay mucaaradka ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in ay hadalkaasi dhab u qaadan doonaan isla markaana ay ka dambeeyaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. haddaba maalmihii ugu dambeeyay mid ku taaga isku hayeen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladaba waxaa laga dhowr sugayaa natiijada kama dambeysa ay ka dhalato xilli 8 Febraayo loo madalsan yahay in lagu qabto Muqdisho doorashada madaxweynaha.